waxaa laga yaabaa inuu ahaa kulankan midkii ugu caansanaa sagaashanaadkii qarnigii 20aad markii madaxweyne Saddam Hussein la kulmay feeryaankii ugu qaalisanaa taariikhda Maxamed Cali Kalay. Haddaba waa maxay Kalay? Waa maxay sheekada ka dambaysa kulankiisii Saddam iyo macluumaad badan oo aadan ka ogeyn ayaan idiin soo gudbin doonaa. Magaciisa dhabta ah waa Cassius Marcellus Clay Jr. waa Mareykan sanadkii 1942 ayuu ku dhashay maamulka Kentucky. Si kadis ah ayuu xilli hore ugu biiray caalamka feerka isagoo da'diisu tahay 11 jir. Guulo badan ayuu ka soo hooyay da'yarkii markii uu 18 jir ahaana waxaa u suurta gashay in uu helo bilada dahabka ee Olympia Roma qaybta miisaanka fudud. Ka qayb qaadashadii uu sameeyay oo ka koobnaa 19 ciyaarood, 15 ka mid ah waxa uu ku afmeeray feerka degdega ah ee gabagabada. Dabadeed waxaa imaanaya la yaabkii weynaa ee sanadkii 1964 isagoo da'diisu tahay 22 jir in uu la ciyaaro geesigii dunida feerka xilligaas, Sonny Letson, si uu uga baxo ciyaarta isaga oo guuleystay in ka yar daqiiqad markii ay bilaabatay ciyaarta. Intaa kadib Kalay waxa uu noqday feeryahanka ugu fiican taariikhda Mareykanka 60meeyadii. waana isla ciyaartii uu Kalay ku hor istaagay malaayiin dad ah oo ku hareeraysan iyo shaashadaha TV-da kuwa ka daawanaya in uu qirtay islaamnimadiisii. magaciisina uu noqday Maxamed Cali Kalay. Asxaabay waa maasantiin caawa waxaan jeclaystay inta yar inaan idin la wadaago oo ku saabsan feeryaankii caanka ah ee Maxamed Cali Kalay. Aad ku maasantiin daawashadiina. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi.